xiisadii u dhaxaysay Farmaajo iyo Roble ee ku saabsaneyd kiiska Igraan Tahliil ayaa gaartay meeshii ugu xumayd iyadoo lagu guuleysan waayay wadahadaladii laga dhaxwaday labada nin. Farmaajo ayaa xalay qaaday tallaabooyin uu ku burburinayo dhammaan wixii Roble sameeyay iyadoo Roblena uu qaaday tallaabo uu ku beeninayo wixii uu Farmaajo xalay isku dayay. Inta aanan ka hadlin qoraaladii labada nin ka soo baxay xalay, fasiraadooda iyo waxa ka dhalan kara, marka hore aan eegno wadahadaladii shalay dhexmara labada nin iyo waxa sababay in lagu guuldareysto. Galinkii dambe ee shalay waxaa lagu guuleystay in markii koowaad Farmaajo iyo Roble toos isu qaabilaan, tan iyo markii uu Roble u istaagay cadaalad u raadinta Igraan Tahliil Faarax isagoo shaqadii ka fariisiyay hogaamiyaha la tuhunsan yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. afarta taliye ee ciidanka, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaankii muddadu ka dhamaatay Cabdiweli Ibraahim Mudey iyo wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka Cabdulaahi Carab ayaa fadhiyay kulanka labada nin, kuwaas oo ahaa guurtidii u kala gar qaadaysay hogaamiyaasha maalmuhu isu diideen. Dooda labada nin waqti badan ma qaadanin sida la xaqiijiyay. Roble wuxuu miiska la yimid inuu Fahad baxo, Igraan cadaalad hesho, Bashiir Goobana uu sii wada Niisa. Farmaajona waxa uu miiska soo saaray inuu aqbalo inuu Fahad baxo, in maxkamadda ka hor Fahad loo ogolaado inuu hadal ka jeediyo shirka golaha amniga qaranka iyo in isaga loo dhaafo cidda bedelaysa Fahad. Waxaa la sheegay in labada nin aanay isu muujin xushmad badan. Ra'iisul Wasaaraha oo shalay ka balansanaa kulanka iscafinta ee siyaasiyiinta reer waqooyiga oo aan waqti badan haysan ayaa Farmaajo kula dooday in kiiska Igraan uu dusha saartay uuna rabo inuu Soomaalida horteeda keeno hoggaanka Niisa iyo qoyska Igraan, halkaana ay ku kala garbaxaan. Waxaa la sheegay inuu Farmaajo si weyn u difaacday aragtidiisa ah in baarista ka hor la isugu yimaado shirka golaha amniga qaranka. Dhinaca Roble waxaa la sheegay inuu ku dooday in haddii uu Fahad hayo wax gooniya oo uu sheego inuu soo raacin karay warbixintiisii 3 bishan ama inuu ra'iisul wasaaraha u soo gudbin karay waqtigii loo qabtay oo ahaa 48 saacadood. Intaa kadib guddigii dhexdhexaadintu waxay soo jeediyeen in Roble la fasaxo oo ay isu haraan iyaga iyo Farmaajo maadaama la ismari waayay. Farmaajo ayaa markii dambe guddiga u soo dhiibay laba arrimood inuu aqbali karo oo ah inuu Fahad baxo iyo inuu Bashiir Goobe sii joogo Niisa, balse uu rabo in baarista la joojiyo, shirka golaha amnigana la qabto, Fahadna uu halkaas hadal ka jeediyo. Intaas kuma ekaanine waxa uu Farmaajo dalbaday inuu u baahan yahay inuu dhowr saacadood oo wadatashi la soo qaato kooxdiisa. Siday sheegeen xubno ka tirsan Villa Soomaaliya, Fahad, Balal, Cabdisiciid iyo inta badan xubnaha Farmaajo ku dhow ayaa toos uga hor yimid xalkii uu Farmaajo qaatay, waxaana lagu qanciyay in dagaal toos ah lala aado Roble. Kadibna Farmaajo waxa uu soo saaray waraaq u muuqatay ismiidaamin siyaasadeed. Sidaas ayay kooxda Farmaajo ku fashilisay waanwaantii socotay shalay. Haddaba maxaa dhacay xalay? Farmaajo ayaa soo saaray wareegto magacaabis u badan oo lagu inkiray wixii uu Roble sameeyay oo dhan. Wuxuu Farmaajo sheegay inuu Fahad iscasilaad u soo gudbiyay uuna ka aqbalay, isagoo inkiray inuu aqbalay shaqo joojintii uu Roble ku sameeyay Fahad, wuxuuna taas beddelkeeda u magacaabay la taliyaha amniga qaranka. Wuxuu Farmaajo ka cararayaa in Fahad ku baxo kiiska Igraan. Qoraalku uu xalay Farmaajo soo saaray mar kale ayaa la diiday in la xuso Igraan. Wuxuu Farmaajo sidoo kale tuuray magacaabistii Roble ee Bashiir Goobe, wuxuuna si ku meel gaar ah ugu magacaabay hoggaanka Niisa Yaasiin Farey oo ahaa taliyaha Niisa ee gobolka Banaadir. Yaasiin Farey wuxuu ku jiraa ragga lagu tuhunsan yahay arrinta Igraan. Magacaabistiisu waxay ka dhigan tahay inuu Farmaajo toos u diiday in la baaro kiiska Igraan Tahliil. Farmaajo waxa uu iclaamiyay in 18 bishan la isugu yimaado shirka golaha amniga qaranka si looga hor akhriyo warbixinta laga dalbaday hay'adda nabad sugidda. Mar kale halkaas waa la diiday in lagu daro magaca gabadha. Si weyn ayuu Farmaajo ugu hagoogtay Fahad Yaasiin isagoo daaqadda ka sii bixinaya xaqa Igraan. Dhinaca Roble, ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo saaray qoraal uu uga jawaabayo fariinta Farmaajo. Wuxuu hadalka Farmaajo ka soo qaatay inuu aqbalay shaqo joojintii lagu sameeyay Fahad wuuna ku bogaadiyay taas. Roble wuxuu inkiray magacaabista Yaasiin Farey ee uu Farmaajo xal sameeyay, wuxuuna Roble faray taliyaha uu isagu magacaabay ee Bashiir Goobe inuu sii wato shaqada Niisa awoodana la wareego.
Roble wuxuu ku eedeeyay Farmaajo inuu daba socdo mas'uuliyaddii amniga iyo doorashooyinka ee uu ku wareejiyay baarlamaanka hortiisa. wuxuu Roble qoraalkii xalay ee Farmaajo ku tilmaamay inuu yahay mid lagu carqaladeynayo in baaris dhab ah oo laga salgaara lagu sameeyo kiiska Ikraan Tahliil. wuxuuna sheegay in tallaabada Farmaajo ay tahay mid lagu hor istaagayo in baaris buuxda lagu sameeyo kiiskaas. wuxuu sheegay inay taa wax laga xumaado in la siyaasadeeyo xaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la dulmiyay. Roble ayaa weydiistay shacabka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan sidii Ikraan Tahliil ku heli lahayd cadaalad. waxay labada nin xalay iclaamiyeen dagaalkii siyaasadeed ee ugu kululaa in muddo ah. sida uu xaalku ku socdo wuxuu dalku mar kale geli karaa qalalaase amni. dhinaca Farmaajo waxaa ka socda tallaabooyin ciidan halka Roble laga sugayo inuu tago xarunta hay'adda nabad sugidda si uu awoodda ugu wareejiyo Bashiir Goobe iyo in toos loo bilaabo baarista kiiska Ikraan kadibna soo qabasho loo jaro dadka ay ku caddahay arrintan. sidoo kale waxaa si weyn isha loogu hayaa dhinaca ay aadi doonaan ciidanka Midowga Afrika ee Soomaaliya jooga ee loo yaqaan AMISOM, kuwaas oo natiijada dhinac u ridi kara. warbixinadeena soo socda ayaan ku faaqidi doonaa arrimo badan oo ku hoos jira dagaalkan siyaasadeed ee dib u qarxay oo galaafan kara arrimaha doorashooyinka iyo ammaanka dalka. maxay kula tahay adiga?